maanta waxay ku saabsan tahay nin la oran jiray Dr. Majid ayaa wuxuu ahaa arday dhigta kulliyadda caafimaadka qaybta ilkaha jaamacadda markuu dhameeyay ayaa isagoo aad u faraxsan wuxuu dalbaday inuu shaqaysto kadib wuxuu tagay magaalada Dubai wuxuu ka furtay meel center ah goob caafimaad buu ka furtay Dr. Majid markuu furtay goobta caafimaadka ayaa waxaa dhacay bishii ugu horeysay waa loo soo gali waayay cidba uu waayay bishii ugu horeysay bishii labaad baa loo soo gali waayay oo cidba uu waayay bishii saddexaad baa loo soo gali waayay aad buu u yaabay 3 bilood markay ku marayso weliba lacagtii kiradana lagu leeyahay oo 6,000 oo markaa dirham ah ayuu aad u warwaray intaasoo kaliya maaha waxa u yimi ninkii meeshaas ka lahaa ninkii goobtan caafimaad ninkii goobtan gurigan uu degan yahay iska lahaa ayaa u yimi oo ku yiri dhageyso doctor waxaan ka rabaa kiradii dhismaha ee guriga meesha aad degantahay baan ka rabaa haddaad maanta bixin weydana jeelka ku taxaabaya halka lama jiro imisaan ku sugaay Dr. Majid aad buu u warwaray wax lacag wuxuu haystaa 1,000 dirham buu haystaa wax lacagaba xaaladiisu halka markay marayso ayaa waxa dhacay isagoo warwarsan oo walacsan baa waxa soo qaraacay aabihii baa soo qaraacay magaalo kale dal kale ka soo qaraacay aabihii buu telefoonkii ka qabtay wuxuu aabo maxaad rabtaa aabihii baa ku yiri aabo xaalad adag baan ku jirnaa dhaqaale xumaana haysataa waxaan ka dalbanayaa lacag inaad noo soo dirto Dr. Majid aad buu uga xumaaday laakiin haddana wuxuu ku yiri aabo maxaad u baahantiin insaad u baahantiin aabihii baa wuxuu yiri waxaan u baahanahay 1,000 dirham baan u baahanaa Dr. Majid xaaladda halka ma karmarayso naftiisii baa sheekaysatay oo isweydiisay ma aabaha baad siisay 1,000 dirham mise ninkii kirada kugu lahaa guriga ayaad iska sii sayd ku aamusiisaa ayuu isweydiiyey aad isagoo u warwarsan ayuu markii dambe wuxuu go'aansaday inuu siiyo aabihii u diro aabihii ba 1,000 dirham u diray markuu sidaa ugu diray uu iska tagay ayaa wararka ku sii kordhay sababtoo maanta hadduu bixin waayo ninkii wuxuu ku yiri police baa kugu yeedhaya isagoo maqaaxi cafeteria ka uga shaahaynaya oo fikiraya ay telefoonka soo dhacay telefoonku sidaa markaa u soo dhacay ayuu qabtay mise waxaa la hadlaysaba gabadhii isaga secretaire-ka u ahayd ee goobtiisa caafimaad joogtay ayaa la soo hadlaysa oo maxay leedahay Dr. Majid soo kac soo degdeg meeshii way buuxdaa goobtii caafimaadkaagu way buuxdaa dad bay ka buuxdaa soo orod intaa markuu marqad uu yaabay wuxuu ugu jawaabay sidee u buuxsan kartaa 3 bilood baan joogo qof muu imanay sidee maanta dadka wada iman karaan macquulba maaha isagoo yaaban buu soo baxay oo dhinacna iska leh talo maninkii kirada guriga iska lahaa ayaa ku siyaasadaynaya goobtii markuu saa u soo galayba soo meesha buuxdaba dumar ciyaal rag waa buuxda meesha oo galay oo wuxuu bilaabay dadkii inuu daweeyo ilaa maalintii la ibu shaqaynay ilaa dadkan meesha yimiba waxa weeyaan nin imaaraatiyo oday ah oo umarad dadka waaweyn ee odayaasha ah oo 4 dumar leh ayaa dumarkiisa iyo ciyaalkiisa iyo wixii dhan meesha keenay maalintaas doctorku uu shaqeeyay maalinta markii shaqadii ka dhamaatay ayaa lacagtu halaabo eego horta 6,000 ee laga rabay ee dirham uu iska bixiyay markiiba lacag kale dheeraadna waa u soo hadhay wuxuu bilaabay Dr. Majid maalinta laga bilaabo meesha kor inuu kacdo Dr. Majid aanu ka sheekaynaynaa imika wuxuu yahay ragga ugu caansan caalamka carabi fiilka caafimaadka ilkaha Dr. Majid mar baa la weydiiyay Dr. Majid sidaad ku gaadhay guushan wuxuu ku jawaabay maalintan aabahay lacagta u diray maalintaasay noloshada isbedeshay maalinta laga bilaabo guul uma ku jiray kor uma socday imika goobtiisa caafimaad waa goobaha ugu caansan caalamka carabi ee ilkaha ka shaqeeya intaasoo runtii qanaat vid muxuu ahay television ayaa waraysi la yeesha
ku saabsan arrimaha caafimaadka ee ilkaha daawada qisadeena waxay qotontaa xikmadda xambaarsantay waxa weeyaan waalidkaaga hagadaad hagaajiso waalidkaaga haddaad u samafasho khayr oo dhan baa ku jira adduunka waad ku liibaanaysaa aakhira waad ku liibaanaysaa isku day waalidkaaga inaad raali geliso isku day shilin haddaad haysato waalidkaaga inaad siiso isku day markasta waalidkaaga inaad ka farxiso iyagoo farxa waxay keensanaysaa adiguna inaad guulaysato